gudoomiyaha guud ee gudida Garxajis oo shir jiraayid ku qabtay xafiiska ay gudidu ku leedahay magaalada Hargeysa ayaa ka jawaabay hadallo ka soo yeedhay madax dhaqameed kamida beesha Garxajis waxaanu gudoomiyuhu sheegay inay hadalladan ay madax dhaqameedku ka hadleen ay qorshahooda ku jiraan balse ay ka hor dhaceen doonaya inaan iftiimiyo arrimo maalmahan dambe warbaahinta ay kaga hadleen qolo odayaali arrintaas oo haba yaraatay aan leeyahay sideedaba marka hore afka beelweynta Garxajis waxa ku hadli kara oo kaliya gudoomiyaha guud ee beelweynta Garxajis waa sida sharciga ah ee shirkii buurta gacan libaax iyo qodobadii lagu gaadhay bay kamid tahay odayaasha hadlay ee Suldaan Cismaan iyo labada boqor fikirkooda hadleen dhanka kalena gudoomiyuhu waxa uu ka warbixiyay shirar u socday gudida Garxajis maalmihii la soo dhaafay socday wiigagan oo dhan shirar istaba jooga shirarka istaba jooga wuxuu u socday gudiga guud waxaana laga hadlayaa masiirka guud ee beelweynta Garxajis mid dhow iyo mid dheerba shirarka soo socda ayay hororsadeen kana hor dhaceen sida daraadeed waxa qasab noqotay oo inagu qasabtay inaan ka jawaabno ilaa waa wax qaldan oo soo baxay taasina waa taas haddii wax la diidayo ama la yeelayo ama masiirka guud iyo 10kii qodob ee lagu gaadhay gacan libaax waxa ay hor yaalaan oo miiska u saaran yihiin oo shirar istaba joog iyo joogta ku jira gudiga guud go'aanka kama dambaysta iyagun baa soo saari kara cid kale oo soo saari karta ma jirto go'aanka kama dambaysta ah ee waxa la yeelaya ee waxa la qabsanaya ee waxa beela la kulmaya ee waxa cid kasta oo xiriir ama hawl Garxajis u taalay oo buurta lagu soo gaaray iyadoo sharciga la raacayo dhawaan shirkii beesha oo ku qabsaday buurta gacan libaax qodobna loo soo kala horeysiinayo mar wal qodob walba maalintu ku habooyeen waa la qaban doonaa gudidan u yaala go'aanka gaadhintiisu cid kale oo sheegan kartaan jirin cid kale oo ku hadli kartaan jirin cid kale oo hanjabi kartaan jirin sida daraadeed dhamaan waxaan ogeysiinaynaa gudaha iyo dibad shacabweynaha reer Soomaaliland iyo gaar ahaan dadka ka soo jeeda beelweynta Garxajis in arrinta ay u taalo gudidana go'aamada ay ka soo saaraan loo hogaansamayo arrintani waa arrin hal waxyaalihii lagu soo gaadhay sharciyadii lagu soo gaadhay buurta gacan libaax weeyaan waa sharciga gudiga guud imaka horiya waxyaalaha gudiga guud horyaala ee laga wada hadlayo weeyaan inaan ka hor ka dhacana ma rabo waqtigeeda hala gaadho gudiga guud baana go'aanka kaba dambeynta soo saari karta in loo tago iyo inaan loo tagin Ali Fahad Saab TV magaalada Hargeysa.